Xiddiga caanka ah ee shirkadda Bollywood-ka Sanjay Dutt ayaa shaaciyay inuu ka bogsaday cudurka kansarka uu la tacaalayay bilihii la soo dhaafay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu guul ka soo hoyay dagaalkii uu kula jiray cudurka. Dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay waxay ahaayeen waqtiyo adag qoyskayga iyo anigaba, laakiin waxaan dhahaa Ilaah wuxuu dagaaladiisa ugu adag u diraa ciidamadiisa ugu awoodda badan. Maantana iyadoo ay ku aadan tahay munaasabadda dhalashada ilmahayga, waxaan ku faraxsanahay inaan dagaalkani ka soo baxay anigoo guuleystay, aana awood u yeesho inaan siiyo hadiyadda ugu wanaagsan ee aan awoodo, oo ah caafimaadka qoyskeena, ayuu Sanjay Dutt ku yiri qoraalkiisa. Arrintan suurtagal ma noqoteen haddii aanan taageero buuxda idinka haysanin dhammaantiin. Waxaan mahadcelin siinayaa qoyskayga, saaxiibada iyo dhammaan taageerayaasha i garab istaagnaa, dhiirigelintana ii noqday waqtiga adag. Waad ku mahadsantihiin jacaylka, naxariista, ducooyinka aad tirada lahayn ee aad ii soo dirteen, ayuu sii raaciyay. Sanjay Dutt ayaa sidoo kale u mahadceliyay dhaqaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaad ee sida fiican u xanaaneeyay. Waxaan mahadnaq gaar ah siinayaa Dr. Siwani iyo kooxdeeda dhaqaatiirta ah, kalkaalisooyinka iyo howlwadeenka caafimaad ee isbitaalka Kokileben, kuwaasoo si fiican ii daryeelay dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay, ayuu ku yiri qoraalkiisa Twitter-ka. Horaantii bishii Agoosto ayay soo baxeen warar ku saabsan in atoorahan caanka ah uu ku dhacay cudurka dilaaga ee kansarka. Kadib markii ay xaaladiisa caafimaad xumaatay ayaa laga baaray cudurka COVID-19, laakiin natiijada soo baxday waxay sheegtay inuusan qabin fayraska. Markii dambena waxaa la soo tabiyay in jilaaga uu culays gudaha ah ka dareemay xabadka, maadaama laga waayay coronavirus. Dhaqaatiirta ayaa ka baaray cudurka kansarka, kaasoo ugu dambeyntii laga helay, sida ay warbaahinta xilligaasi shaaciyeen. Isla markii ay soo baxeen wararka ku saabsan in laga helay cudurka kansarka, wuxuu shaaciyay inuu hakad geliyay howlihiisii jilista filimada, balse hadda uu ka baxay cudurka kansarka wuxuu sheegay inuu shaqadiisa dib u bilaabi doono. Sanjay Dutt oo jilayay in ka badan 150 filim ayaa ka mid ahaa atoorayaasha loogu jecel yahay shirkadda Bollywood-ka Hindiya. Muddo dheer ayuuna ku soo dhex jiray xirfaddan. Wax walba oo ku saabsan jilaagan caanka ah iyo taariikhdiisa waxaan ka sameeyay muuqaal, waxaadna ka arki kartaa xagga sare.